ilaa iyo galabta weerar ayaa ku socda Israa'iil xuutiyiintu waxa ay beegsanayaan gantaalada ridada dheer warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin nidaamka militariga Israa'iil waxa ay daareen dhawaaqa ama seeriga digniinta bixiya marka hawada Israa'iil ay gantaalo iyo drones ay soo galaan taas oo ku kaliftay mar kale caawa in malaayiin yuhuud ah ay dhulka hoostiisa ku hoydaan xuutiga waxa ay sheegeen weerarka caawa ay bilaabeen in ay joojin doonin laakiin ay laba jibaari doonaan waxayna wali sheegeen xuutiga inay ku gudu jiraan waxa ay ugu yeereen duufaantii wajiga afaraad taas oo ah weerara ilaa iyo 4 waji ah oo ay ku sheegeen inay ku qaadeen Israa'iil waxay sheegeen inay soo dhameeyeen wajigii koowaad wajigii labaad iyo wajigii saddexaad hadda waxay leeyihiin waxaynu ku gudu jirnaa xuutiga wajigii ugu khatarta badnaa kaas oo ay sheegeen inay duruus ugu dhigayaan Israa'iil waxay xuutiga ku baaqeen mar kale dalalka carabta iyo kuwa muslimiinta inay u istaagaan walaalahood reer Gaza oo ay sheegeen inay ku jiraan xaalad bani aadamnimo oo aad u daran waxayna xuutiga ka digeen hadafka Israa'iil inuu soo ku ekayn oo kaliya Yemen ama Gaza laakiin Israa'iil waxa ay damacsan tahay bay yiraahdeen sida Netanyahu ba afkiisa uu ka sheegay waxa loogu yeeray Israa'iisha weyn taasi waxa ay saameyn doontaa bay yiraahdeen dalal maanta hurda ama aan baraarugsanayn maalin ay xeeray fandhaal kala tageen ay kici doonaan waxna ay u tari doonin xuutiga waxa ay sheegeen dhankooda in ay ka caajis doonin kana daali doonin isgarabtaaga walaalahood reer Gaza way walaalaha qiimiga lahow weerarka xuutiga Israa'iil warbaahinta Israa'iil waxa ay aad u faafiyeen una sheegeen in la burburiyo xaruntii korontada laakiin xuutiga waxay leeyihiin arintaas fashil ay ku dhamaatay waxna kama hirgelin oo dhammaan xarumahaasi waa ay bad qabaan oo way badbaadeen qodobka xiga barnaamijka dalka Pakistan ayaa si yaab leh ugu hiiliyay dalka Suudaan gaar ahaan militariga dalka Suudaan waxa ay sheegeen Pakistan in ay la saxiixdeen dalka Suudaan heshiis gaaraya 1.5 bilyan oo hub militari inay siinayaan maxay fursad u helayaan marka Suudaan oo Pakistan ay ka heli doonaan sida heshiiska ku cad waxa laga heli doonaa Pakistan hubkeeda casriga ah oo uu ku jiro nidaamka difaaca oo ku jiro gantaalo casri ah oo nooca ridada dheer iyo ridada gaaban intaba sidoo kale hubka caadiga oo gacanta lagu dagaalamo qoryaha yaryarka ah iyo sidoo kale rasaastii hubkaas loo adeegsan lahaa waxa ay sidoo kale Pakistan sheegeen in qaybo kamida diyaaradaha Pakistan lagu caawin doono dalka Suudaan waxay maanta caawa leeyihiin warbaahinta tani waa jawaab ku socota Imaaraadka Carabta ma ahan jawaab ku socoto qolooyinka mucaaradka kaliya ee ay garab istaagayeen waxa loo yaqaano Imaaraadka Carabta oo gacalo shaqaystayaal abuuray si militariga Suudaan meesha looga saaro xifaaltan iyo dagaal toos ah ayaa ka dhaxayo Suudaan iyo Imaaraadka heer waxa la isla gaaray la dacweeyo oo maxkamad la isla aado UN-ka la isla aado oo meel adag bay ka gaartay laakiin waxa ay u muuqataa in Imaaraadka Carabta ay ka go'an tahay in meesha ay ka saarto militariga dalka Suudaan iyadoo isku geysay calow shaqaystayaal qaarkood Afrikada kala duwan laga keenay sida South Africa, South Sudan iyo meelo kale haddaba heshiiskan Pakistan iyo Suudaan ayaa la tilmaamayaa inuu yahay heshiiskii ugu weynaa taariikhda dalka Pakistan ay la gasho dal Afrikaan inuu yahay lana sheegay in uu wax weyn u tarayo militariga dalka Suudaan oo iyagoo kaalmo noocan haysanin caasimadii Khartoum iyo qaybo kala furtay tani waxa ay leeyihiin qubarada militariga waa darbaaxadii ugu horeysay iyo dib u dhicii ugu weynaa soo gaari doona siyaasadda Imaaraadka Carabta ee ku beegan ama ku wajahan dalalka Afrika dalal dhowr ayaa Imaaraadka Carabta dacwo ka qabo oo aad u eedeynaya oo sheegay inay faragelin ku hayso Imaaraadka faragelin laba nooc ay ku haysaa mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo hadda oo ay mid military ku soo darsatay weerarada ay ka wada Suudaan iyo qaybaha kale oo ay Suudaaniyiintu ku eedeeyeen in Imaaraadka ay toos u garab taagan tahay jabhadda dhibaatada weyn ku haysa ciidanka dalka Suudaan cadeymo ay soo bandhigeen inkastoo Imaaraadka ay inkirayaan haddana hadda waxa la sheegayaa in ciidamadii ay soo tababareen calow shaqaystayaashii gudaha dalka Suudaan inay ka dagaalamayaan si kastaba ha noqotee hubkan oo qayb kamid ah durbaba la soo gaaray militariga Suudaan oo ay soo gaareen kuwa kalena loo soo wado
ayaa maanta qabsaday warbaahinta caalamka. imaaraadka marka muxuu arintan ka tari karaa dhaqaalahaanse 1.5 bilyan Pakistan dhaqaale badan ma haysta maahan yaa siinaya waxa la leeyahay dalal badan ayaa go'aan ku gaaray oo uu ka mid yahay Turkiga iyo kuwa kale in laga caawiyo dhaqaalahaas Pakistan si loo hubeeyo ciidanka militariga dalka Suudaan loona diyaariyo loona dhiso. Suudaan marka tartan baa ka jiro waa lagu tartamaya waxa ku tartamaya imaaraadka Turkiga iyo Pakistan oo hadda ku soo darsamay waxa moodaa aragti ahaan Pakistan iyo Turkiga inay isku meel wax ka wadaan halka imaaraadka kaligiis uu gooni u taagan yahay oo aad muddo Israa'iil dhinaca hoose inuu ka wado oo garabka ugu weyn uu haysto inuu yahay Israa'iil. imaaraadka maanta arintan ku dhacday waxay ku furaysaa baa le wajiyo cusub dalal badan ayaana ku soo jeesanaya way walaalaha qiimiga loo dharbaaxada gaartay imaaraadka carabta markaynu meesha uga gudubno wixii ku soo kordhanaan barnaamijyada dambe ku soo qaadan doono waxa ay noo soo socdo wadooyinka Tel Aviv Qudus iyo goobaha kale Israa'iil muhiim ku ah oo xiran mudaharaadyaashii oo caradoodu meel adag ay marayso iyana faahfaahin baan idinkaga hayaa iyo maxay diidantaa Hamas iyo digniinta ay u direys dadka reer Gaza Hamas ayaan iyana dul istaagi doonaa khiyaanada Israa'iil iyo dabinta kale ay u dhigayso dadka reer Gaza laakiin marka hore walaalaha qiimiga loo inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan waxaynu soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena fiidnimo caawa xadiisniin soo galaysa ay tahay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Israa'iil sida Tel Aviv Qudus iyo qaybo kale oo ka tirsan Israa'iil deegaanada ay ku sugan tahay ayaa caawa lagu waramayaa in wadooyinkii waaweynaa ay xiran yihiin sabab la sheegay mudaharaadyo waaweyn oo halka ka socda dadweynaha ayaa ka gadoodsan hanjabaadda Israa'iil ee ku aadan in weerarada marinka Gaza la ballaarinayo iyadoo maanta lagu waramayo in ciidamada Israa'iil hogaanka ugu sareeya iyo taliyaha guud ee ciidanka dhammaan ay ansixiyeen qorshaha loogu yeeray ballaarinta weerarka Gaza waxay arintaasi ku tilmaameen mudaharaadyada inay mar kale halis gelinayso nafta qolooyinka laga haysta Israa'iil ama kooxaha gacanta kooxaha iska caabinta ku jira ee maxaabiista Israa'iil laga haysta si kastaba ha noqotee mudaharaadyada maanta ayaa lagu waramayaa in ay ka duwan yihiin kuwii horay dadweynaha ayaa ku dhawaaqaya gabi ahaanba inaysan wadooyinka waaweyn furi doonin halkaasna ka dhaqaaqi doonin ilaa inta ay ka helayaan ballanqaad ah in dagaalka Gaza la soo afjaray wada hadaladii dib loogu noqonayo dadka Israa'iil laga haystana la soo daynayo laakiin maamulka Netanyahu ayaa u muuqday in arrimahaasi uusan dhag jalaq u siinayn kadib markii maanta mar kale uu ku dhawaaqay qorshaha loogu yeeray in sida kaliya ee dagaalka lagu joojin karo ay tahay Hamas oo hub ka dhigto Gaza iskaga baxdo iyo Israa'iil oo kor ka maamusho marinka Gaza isla markaana loo gacan geliyo dad Falastiiniyiin ah laakiin aan ahayn buu yiri Hamas iyo dawladda Falastiiniyiinta ee ka talisa daanta galbeed ee uu hogaaminaya Mahmoud Abbas ma sheegin cidda saddexaad ee uu doonayo in loo gacan geliyo mudaharaadyaasha ayaa ka walwalsan xaaladda caafimaad mid amni iyo guud ahaan nolosha ay ku sugan yihiin dadka Israa'iil laga haysta in ka badan 22 bilood kuna socod 23 bilood waayo walaalaha qiimiga loo qaybta markaynu meesha ugu gudubno qodobka ugu dambeeya barnaamijka caawa waxaynu ku dul istaagayna Hamas ayaa aad uga dayrisay isla markaana khatar iyo halis weyn ku tilmaantay qorshaha Israa'iil inay doonayso dadka reer Gaza inay iskugu geyso koonfurta Gaza halkaas oo teendooyin laga dhisayo teendooyinkaas waxa la leeyahay dib u dejin baa loogu magac daray dadka halkaas iskugu imaanayaan cunadii baa lagu siinayaa bay leeyihiin caafimaad iyo waxbarasho loogu diyaarinayaa waa koonfurta kaliya ayaa la iskugu keenayaa dhowrka milyan ee reer Gaza arintaas Hamas waxay ku tilmaantay inay tahay qiyaano la doonayo mar kale in lagu majahbaabiyo guusha iyo dadaalka ay gaareen dadka reer Falastiin oo ah in 22 bilood in ka badan ay ku safreen dagaalka ka socday Gaza hadda waxa la doonayaa si xoog looga saaro dalkooda waa sida iyaga ay aaminsan ama ay ku waramayaan meeshaas in la isku geeyo hal meel ayaa la isku geenayaa marka waxa fududaanaysa baa la leeyahay in dadka reer Gaza la barakiciyo taas oo mar kale qayb ka noqonaysa hadii ay dhacdo waxa loogu yeeray xasuuqa noocyadiisa waxa kamid ah dad hal meel wada degan in la baabiyo ama la dilo sidoo kale in dadka xoog looga saaro deegaankooda xoog lagu qaxiyo hadda waxay iyagu ku eedeynayaan Israa'iil qorshaha ay wada inay tahay in dadweynaha reer Gaza xoog looga saaro deegaankooda
waxayna diideen arrintaasi waxayna Xamaas sheegtay inaysan arrintaas aqbali doonin ayna tahay mar kale dulmi iyo halis kale oo ay wajahayaan dadweynaha reer Gaza waxayna ugu baaqeen dadka inay arrintaasi ka foojignaadaan oo la doonayo in noloshooda lagu dhibaateeyo walaalaha ay saaxiibada qiimiga lahow qaybta markaynu meesha ugu gudubno iyo guud ahaan barnaamijkeeni fiidnimo war degdeg oo mar dhow soo dhacay intaynu barnaamij ku guda jirnaa ayaa sheegaya Mareykanka 3 qof ayaa ku dhimatay 8 kalena waa ku dhaawacmeen markii uu saacado ka hor ama in yar ka hor uu ka dhacay maqaayad ku taala xaafad Yuhuuda oo degto oo ku taala Brooklyn New York weerarkan lama sheegin cidda gaarka ah ee ka dambeysay iyo sababta weerarkan keentay laakiin waxa la sheegay weerarkani in si gaar loo beegsaday deegaan ay dadka Yuhuuda u badnaayeen oo ku yaala Brooklyn New York barnaamijkeeni habeenimo oo aad kala socoteen Kow Somali Media walaalaha qiimiga lahow qaybtan caawa inta ayaynu ku soo xireynaa tan inta aynu kulmeyno barnaamijkan mid ka xigo waxaan idinkaga tagayaa insha Allah ta'ala nabadgelyada Ilaahay dushiina ha ahaato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh